Asalaamu calaykum saaxiibayaal ku soo dhawaada muuqaal kale. Muuqaalkan maanta waxaan kula wadaagi doonaa meelo si free ah ugu baran karto coding-ka. Balse ugu horreyn waxaan ka codsanayaa inaad ku soo biirto madashan oo ah madal aan ku soo gudbiyo waxyaabo badan oo la xiriira computer science-ka haddii aan lahayn casharo theory practical isugu jira iyo mowduucyo caadi ah. Sidoo kale muuqaalkan like saar si uu si faafo dad badan u sii gaaro. Okay, meesha ugu horeysa aan rabo inaan kula wadaago waxa weeyaan freecodecamp. freecodecamp.org waa meel aad ka helayso waxyaabo badan oo coding-ka ku saabsan programming-ka sida web development-ga, machine learning-ka, artificial intelligence iyo waxyaabo badan aad ka helaysaa website-kan. qaabka waxa ugu baranayso marka waxa weeyaan marka hore coding-ka ayaad baranaysaa waliba si fiican oo adiga lagu practice gareynayo oo baranayso project-yo ayaad dhisaysaa. marka project-yada dhisana waxaad helaysaa certificate free. waxyaabaha marka aad ka helayso haddii aan hoos la eegno waxaa ka mid ah responsive web design waa new kan ku cusub yahay, legacy responsive web design, javascript algorithm and data structures. cashirkan waa cashir aad muhiim u ah. sidoo kale waxaad ka helaysaa front-end libraries oo React ku jirto. waxyaabo badan ayaad ka helaysaa sida back-end-ga iyo API soo loo dhisay ka baranaysaa. waxaad kaloo ka baranaysaa data analysis-ka, machine learning-ka, relational databases-ka. waxyaabo badan ayaad ka helaysaa. si markaad uploado waxaad taabanaysaa get started, kadib ciwaan ayaad ka samaysanaysaa si yar oo fudud, kadibna isagaa ku sii tilmaamaha ku siin doonaysa wax ugu baran karto. Okay, madasha xigta aan kula wadaagi doono waxa weeyaan W3 Schools. w3schools.com ina waxaad ka helaysaa waxyaabo badan oo coding-ka iyo programming-ka la xiriira. tusaale haddaan halkan tagno tutorials-ka aan ku dhufto waxyaabahaas oo dhan ayaad ka helaysaa sida tusaale HTML iyo CSS. waxyaabahaas oo dhan ayaad ka helaysaa. JavaScript sidoo kale waxaad ka helaysaa waxyaabahaas oo dhan. Learn JavaScript, React ayaad ka helaysaa, Angular, JSON, server-side-ka oo kale waxaad ka helaysaa MySQL, SQL, ASP, Node.js. waxyaabo badan muxuu ahaayay programming-ka iyo coding ku saabsan ka helaysaa. data analysis ka ka helaysaa. tusaale ahaan data analysis, learn ay ku leeyihiin machine learning, NumPy, pandas kan iyo matplotlib kan iyo waxa weeye libraries-ka loo adeegsado data analysis-ka. muuqaalkii Python aan ku sharaxay ayaan ku sharaxay. waxyaabaha kale aad ka helayso website-kan waxaa ka mid ah programming-ka oo kale. tusaale ahaan Python, Java, C++, C#, Kotlin ayaad ka helaysaa, iyo mobile development-ga. waxyaabahaas oo TypeScript ayaad ka helaysaa. waxyaabahaas oo ayaad ka helaysaa. marka iyagu waxay kaga duwan yihiin freecodecamp-ka. certificate-ka waa lacag sidaa ka muuqata, waad iibsanaysaa. imtixaan yar ay kaa qaadayaan. ma tijaabin anuu information saa usii badan kama haysto, balse saa ku qoran certificate waad iibsanaysaa. marka W3 School-ka sababna waxa weeyaan waa website cajiib ah waxyaabo badan coding ku saabsan aad ka baran karto. Okay, madasha inta xigtay aan rabo inaan kula wadaago waxa weeyaan YouTube-ka isna waxaad ka baran kartaa waxyaabo badan. dabcan coding-ka iyo programming-ka kaliya maaha, wax walba ayaad ka baran kartaa YouTube-ka sidoo ogtiin inaad ka horeysaan. balse waxaan kula wadaagi doonaa dhowr channel oo aan isleeyahay haddii dadka la wadaagto ay dadka waliba horaan u ogeen way ka faa'iidi doonaan. channelka ugu horeeya kula wadaagi doona marka waxa weeyaan freecodecamp.org. freecodecamp-kan marka hore website-kiisa soo aragnay, kan waa YouTube channel-kiisa. waxa ku xiran 5 milyan dad kor u dhaafay, ku dhawaad 6 milyan ayaa ku xiran. waxaad ka helaysaa waxyaabo badan. casharaanta marka ay soo geliyaan waxay u badan yihiin Python iyo JavaScript. sidoo kale waxaad ka helaysaa blockchain development iyo web3 development. waxyaabo badan ayaad ka helaysaa. channelka xiga aan kula wadaagi doono waxa weeyaan Travis Media-sna waxaad ka helaysaa waxyaabo badan oo coding-ka ku saabsan. casharaan crash course ay ka helaysaa sida React, Vue, TypeScript, JavaScript crash course, Next.js crash course, Node.js. waxyaabo badan oo web development u badan ayaad ka helaysaa. channelka xigaan kula wadaagi doono waxa weeyaan Clever Programmer-kaasna waxaad ka helaysaa waxa ay badanaa sameeyaan projectyo ay ku dhisayaan real world projects sida tusaale TikTok oo kale, Spotify, Amazon clone, Facebook clone, waxyaabo badan. sidoo kale shorts ay soo geliyaan oo maxay techniques iyo qaabka coding iyo waxyaabaha ku saabsan dadka kula wadaagaan. sidoo kale channelka waxaad ka helaysaa waxyaabo badan ku saabsan blockchain development iyo web3 development ayaad ka helaysaa. channelka ugu dambeeya kula wadaagi doona waxa weeyaan WebDev Simplified. channelkan sida magaciisa ka muuqata waxaad ka helaysaa waxyaabo badan web development ku saabsan, casharaan crash courses iyo isugu jira iyo casharaan shorts maxay badanaa oo soo geliyo sida coding-ka iyo waxyaabo badan ku saabsan techniques-ka waxa ku saabsan dadka kula wadaagaan.
intaasi ayaan jeclaysan markaa maanta saaxiib yeelan idinla wadaago muuqaalkan haddii aad ka heshay ama uu ku caawiyey adna laagta kala baqeelin laagta nagu caawi sidoo kale haddaad weli nagu soo biiro channelka subscribe leh waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan xiga intaan ku kulmayno sida iyo nabadgelyo.